saaka ay taariikhdu tahay 5 bishii Ramadaan waxaanu ka hadli doonaa arrimaha ku saabsan qoyska muslimka ah iyo waxyaabaha looga baahan yahay. Waxaa looga baahan yahay nin kasta oo dhalinyaro maalinta uu 15 jir gaadho inuu ku dhaqaaqo si degdeg ugu guursado, taas oo sababi karta in qofka cifadiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisu ay toosnaadaan. بينما ay dhici karto haddii qofku guur la'aan ku weynaado sir badan oo laga yaabo inay ku hamiyaan xoolo urur iyo hanti jimci, taasina ay keenayso gabadho diintiisa naqsi ka yimaado. dumarka iyo fitantooduna maanta way badan tahay, waxyaabo fara badan oo tabarruj jira. lidalik ayaa waxaad arkaysaa nin dhalinyaro oo isagoo diintiisii iyo dhaqankiisii ay fiican yihiin haddana ku fitnaysan inuu dumarkii indhaha ku taago oo hareeraha eego, marka inaan ka soo baxdo laga yaabo in naftiisa ku mashquusho. taasina waa cudur jira. bal imaam qaxtaani masalada ku hadlayay wuxuu lahaa in الرجال ناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك اللحوم أصولها أكلت بلا عوض ولا أثمان. marka taasan ku nasaxayn lahayn laga yaabo dadka qaarkood inay dhahaan xijaa keenan ilaa imika ma shaqaysan ehelkii meel ma samayn hanti ma jamcin. waxaan leenahay ilaahay baa risq haya. nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam guur buu ku amray. ninka haddii istidaacadiisa la heli karo oo awood leeyahay raganimo ha guursado, kuligana ha gale.